saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay inay baarayso sababta ka dambeysay in Nicholas Haysom ay dawladda Soomaaliya ka saarto dalka. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo war ka soo saaray weerarkii ka dhacay xalanii ciirinta Nicholas Haysom. ciidamada Jubbaland oo xalay dhaqdhaqaaqyo militari ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo sheegay in la diyaariyay ciidamo cusub oo sugaya ammaanka magaalada Muqdisho. wafdigii ay dawladda u dirtay xalinta colaad beeleedka ka taagan Galgaduud oo weli aan xal ka gaarin xiisada ka taagan deegaanka ka xandhaale. dagaal ka dhacay Myanmar oo dad badan ay ku barakaceen. iyo dawladda Nigeria oo xirtay xuduudda ay la wadaagto Syria. waa mahadsantahay Cali Ibraahim Cabdullaahi. bismillaahir rahmaanir rahiim. subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay baarayso sababta ka dambeysay in Nicholas Haysom ay dawladda Soomaaliya ka saarto dalka ka hor inta aysan go'aan ka gaarin arintaas. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya warkan. afayeenka labaad ee qaramada midoobay Farxaan Haaq ayaa sheegay in ay baaritaano ku sameynayaan sababihii ka dambeeyay in dawladda Soomaaliya ay ceerido wakiilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsanaa Nicholas Haysom. waxaan u eegi doonnaa arrintan si degan. waxaan isku dayeynaa inaan dhinacyo badan ka eegno sababihii ka dambeeyey in la eriyo wakiilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo waxyaabaha lagu saleeyey in dalka laga saaro ayuu hadalkiisa sii raaciyey ku-xigeenka afhayeenka guud ee qaramada midoobay. talaadadii ayay ahayd markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay inaysan ku qancin shaqada uu dalka ka hayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom, iyagoona isla markaas ku amray in dalka uu kaga baxo sida ugu dhaqsiyaha badan kadib markii ay dawladdu ku eedeysay in fargelin uu ku sameeyey madax bannaanida dalka. Mr. Haysom ayaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya yimid bishii Sebtembar ee sanadkiina dhaafay 2018 isagoona Soomaaliya ka shaqaynayay muddo 4 bilood oo keli ah. afhayeenka qaramada midoobay waxa uu dhaliilay hanaanka loo maray shaqo ka ceerinta Haysom isagoona sheegay in shaqada ka ceerintiisa ay ku soo beegantay wax yar un kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu si adag u cambaareeyay weerar hoobiyaal oo lagu qaaday xafiiska qaramada midoobay ee ku leedahay xerada Xalane halkaasi ay ku dhaawacmeen qaar ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay isagoona dalbaday in dawladda Soomaaliya ay baaritaano ku sameyso weerarkaasi. go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku gaartay in dalka ay ka saarto Nicholas Haysom wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa yimid kadib markii uu waraaq uu ku dalbanay in faahfaahin dheeraad laga bixiyo wixii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed uu ku dalbanayay uu u diray wasaaradda amniga ee Soomaaliya taas oo ay ka mid ahayd xarigii loo geystay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo uu sheegay in 48 saac wax ka badan uu xirnaaday ay tahay sharci darro iyo sidoo kale xarig loo geystay in ku dhow 300 oo ruux oo u badan caruur magaalada Baydhabo. arintaasi ayaa ka dambeysay in shaqada laga ceeriyo ama ay dawladda Soomaaliya go'aan ku gaarto ka saaridda Nicholas Haysom xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. dhinaca kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa war waxay ka soo saareen ceyrinta Nicholas Haysom iyo weerarkii ka dhacay xerada Xalane. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. xildhibaanadii la magac baxay badbaado qaran isla markaana ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada tan Muqdisho gaar ahaan xarunta qaramada midoobay ee Muqdisho. xildhibaanada ayaa sheegay inay ka xun yihiin weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee Muqdisho isla markaana ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo qandaraaslayaal Soomaali ah. xildhibaanadan ayaa hoosta ka xariiqay in laga maarmaan ay tahay in dalka dhibaatooyinka imikadan uu ku jiro laga samatabixiyo maadaama ay tilmaameen in madaxweyne Farmaajo uu hareermaray shuruucda iyo dastuurka dalka u degan. intaa waxay ku dareen si weyn ugu soo horjeesteen tilaabada lagu ceeriyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom hay'adii arintan ay tahay salafadeedka ku jira madaxda haatan dalka maamusha sida hadalka u dhigeena. xildhibaanada badbaado qaran la magac baxay ayaa ku baaqay in laga fiirsado tilaabo waliba ee la qaadayo maadaama dalka uu burburin karo arrin si qaldan loo qaato waa sida hadalka u dhigayna ayna soo jeedinayaan in wax waliba ee la qaadanayo lagu dhaqo shuruucda iyo dastuurka dalka uu leeyahay. ciidamada Jubbaland ayaa xalay dhaqdhaqaaqyo militari waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose sida warkan ay ku faahfaahinayso Shamis Xasan Haruun. wararka ka imanaya deegaano hoostaga degmada Afmadow gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in xalay ilaa iyo saakay
ay dhaqdhaqaaqyo militari ka socdaan deegaano hoostaga degmada Afmadow. Shalay ayay ahayd markii gobolka Jubbada Hoose ay gaadheen ciidamo aad u badan oo ka tirsan kuwa Jubbaland kuwaasoo diyaarado looga daabulay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada ayaa waxay howlgalka militari ka wadaan duleedka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose kaasoo ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Taliyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay howlgalka Jubbaland ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa wacad ku maray in Jubbaland ay u diyaar garowday dagaal ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasoo ay kaga xoreynayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay bilaaban doonaan maalmaha soo aadan isla markaana ciidamadu ay xilligan diyaar yihiin. Dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu kormeer ku sameeyay ciidamada maamulka Jubbaland isagoona ka dalbaday inay u diyaar garoobaan howlgalkan lagula dagaalamayo Al-Shabaab. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska ayaa sheegay in la diyaariyay ciidamo cusub oo sugaya ammaanka magaalada caasimadda ee Xamar. Farxaan Maxamed Xuseen warkan hayno faahfaahiyo. taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in la diyaariyay ciidamo cusub oo sugaya amniga magaalada Muqdisho. taliyaha ayaa waxa kale uu sheegay in ciidamadan ay u harsan yihiin wax ka yar 10 cisho kadibna ay la wareegi doonaan amniga guud ee magaalada Muqdisho. mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu yiri mudan gudoomiye ciidankan waa ciidan diyaar u ah muddo gaaban dhow ilaa aan dhammayn 10 casho wixii ka dambeeya ciidankii magaalada ka howlgeli lahaa ciidan la soo baxay dadaal iyo karti muddo gaabanna ku dhammaystay tababarkii loogu talagalay. ciidan aan hubo oon aaminsanahay inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada. hadda waxaa u socda tababarkii shuruucda iyo aqoontooda in wacyigelintooda kor loo qaado. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo la hadlayay ciidamada ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo booliis ah isla markaana loogu talagalay sanadka cusub in ay sugaan amniga magaalada Muqdisho. gudoomiyaha ayaa wuxuu kula dardaarmay ciidamada booliiska in aan loo dul qaadan karin in Al-Shabaab ay qaraxyo ka geystaan gudaha magaalada Muqdisho isla markaana ay sugaan amniga magaalada Muqdisho. 2019 galnay 2018 ka soo baxnay in maanta koox argagixisa oo tiro fara ku tiris ah inay magaaladii oo dhan qarax iyo dib ka dhigaan runtii mid loo dul qaadan kara maaha. waxa ka dhidhideen u istaagteenna waxay tahay inaad caasimadiinii gacanta ku dhigtaan isla markaana dawladnimada iyo sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ee lahaayeen aad dib u soo celisaan in dalkiina aad u xoreysaan iyo sida aad u dhabar adeegaysaan diyaarkan ugu tihiin magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waa caasimadii dalka, waa muraayadii ummadda Soomaaliyeed, waa qalbigii dhalinyaro intaan la isku soo xulay oo kun gaaraya oo muddo tababar qaadanayay una soo jeestay inay amniga sugaan magaalada. runtii waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad tababarkan u qaadateen. booliiska oo awalba ahaa shacabka iyo booliiska waa dad aad isugu dhow, haddana idinka tababarada qaadateen inay aad iyo aad sidii shacabkan loo daryeeli lahaa, loo badbaadin lahaa, isla markaana kooxaha argixisada meel kasta ay ku dhuumaalaystaan aad u dabageli lahaydeen. ciidamadan loo diyaariyay sugitaanka amniga magaalada Muqdisho ayaa waxay tiradooda gaaraysaa ilaa 1,000 askari kuwaas oo ah booliis. wafdigii ay dowladda Soomaaliya u dirtay xalinta colaad beeleedka ka taagan Galgaduud ayaa weli waxa aysan xal ka gaarin xiisada ka taagan deegaanka ka xandhaale ee gobolkaas. Shaafici Shariif Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray. xilli wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo ujeedka socdaalkoodu u yahay xalinta colaadaha Galgaduud ka soo cusboonaaday ee cadaado ku sugan yihiin ayaa waxaa muuqata in dadaaladaasi ay gaabis galeen walow ay degan tahay xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay. xiriir aan la sameeyay dadka deegaanka iyo waxgaradka beelaha ku dagaalamay deegaanka ka xandhaale ayaa waxay sheegeen ilaa iyo hadda inaysan jirin wax xal ah oo laga gaaray colaadahaasi. goobihii lagu dagaalamay ayaa waxay xuseen inay yimaadeen oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Itoobiya balse ma jirto ayay yiraahdeen nabadeyn ka socota deegaanka.
wafdiga uga soo ambabaxay magaalada muqdisho ee caasimada dalka xalinta colaadaha galgaduud ayaa ilaa iyo hadda waxa ay sameeyeen inta la ogyahay hal dadaal oo keliya kaasi oo ah wareejinta maxaabiis looga qabtay ciidamada Itoobiya iyagoo ka qayb qaadanaya dagaal beeleedkii dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ka xandhaalay waqooyiga gobolka galgaduud. horey xubin ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxa ay ku tilmaantay ujeedka wafdiga dawladda ee loo soo diray xalinta colaadaha galgaduud in aysan dan ka lahayn dhibaatada shacabka hase ahaatee ay ka gubanayaan maxaabiista looga qabtay ciidamada Itoobiya dagaalkii ka xandhaale. ciidamada Itoobiya ayaa hadda ku sugan deegaanada ka xandhaalay iyo dacdheer oo horey dagaalo uga dhaceen mana jiraan tallaabooyin muuqda oo wafdiga dawladda iyo odayaasha dhaqanka ay u qaadeen in la ishorkeeno xalna la dhex dhigo beelihii ku dagaalamaya ka xandhaale iyo tuulooyinka hoostaga. Shaafici Shariif Maxamuud, Radio Kulmiye. koox budiista hubaysan ah iyo ciidanka ammaanka Myanmar ayaa waxa uu keenay in kumanaan ruux ay ka cararaan guryaha ay deganaayeen ee galbeedka Rakhine halkaas oo meeshii ay ka bilaabatay xiisada Myanmar ee muslimiinta badan ay ku dhinteen. Farxaan Xaaq oo afayeenka qaramada midoobay waxa uu sheegay in ku dhawaad 250 waa 2500 oo ruux ay barakaceen tan iyo horaantii December xilligaas oo ay bilowdeen rabshadaha u dhaxeeya dadka diinta budiistaha ka aaminsan iyo militariga Myanmar. Wararka qaar ayaa sheegay in ay bilowdeen wada hadallo saraakiisha ciidanku ay la fureen kooxaha hubaysan ee budiistaha. gobolka Rakhine waa meesha ay ka dhaceen xadgudubyadii loo geystay muslimiinta kuwaas oo ay waxyeelo dhan walba ah u geysteen dhinacyada hadda dagaalamaya oo iskaashanaya. ugu dambeyntiina Algeria ayaa mamnuucday dhammaan dadka u dhashay Syria inay dalkaasi galaan iyagoo sii maraya xuduudda koonfureed kadib markii hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in 50 ruux oo isugu jira Syrian iyo Falastiiniyiin loo musaafuriyay dalka Niger. Xuseen Kicimi oo ah madaxa siyaasadda soo galootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha Algeria waxa uu sheegay in dadka Syria looga diiday in dalka soo galaan ama dalka ay galaan in ay noqon karaan kooxaha hubaysan